maamulka Soomaaliland uu ku sameeyo gobolka Sanaag ilaali iyo Sanaag marka waxaan u sheegay dadweynaha dariska naayo Soomaaliland maanta loo baahan dhig Soomaaliyeed in la daadiyo ama dhig maartay Puntland iyo Soomaaliland ka dhaxeeya la soo abaabulo dadweynaha reer Puntland wixii daandaasiya xuduudeeda dhinac kasta ahaatee nabad ka qaadan bayaanay ciidamada Puntland iyo dadweynaha wada jirana waxaan leeyahay dadka xaq waxay u leeyihiin dhulkooda inay difaacdaan wixii markaa daandaasi wada iyo faragelin wada annagu haddaanay Puntland faragelin ma wadno cidna ma daandaansanayno dadka darasuuraag inaan kula noolaano ayaan jecelahay laakiin cid kasta oo annaga nagu soo xadgudubtaa oo Puntland ku soo xadgudubtaa horeyna ugama faa'iidin haddana ka faa'iidi mayso marka caalamka iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa cid walba deegaankay leedahay meeshay degan tahay ummadda inay ku nabadgeliso oo maamul wanaag iyo maartay daris wanaag loo wada noolaado inta ummadda Soomaaliyeed qadiyad Soomaaliyeed ay ka midaysan tahay isugu imaanayso laakiin in la isriixo oo maanta xilligaas iyadoo 20 sano ummadda Soomaaliyeed burbur iyo dagaal ku jiray ninka maanta ku fakaraya inuu dad dhul u degan yahay qabsado isagoo hore wax ugu maqnaayeen oo wixii ku maqnaan dib looga raadin in daandaansi kale la keeno waxaas wax suurtagelayana maaha wax dhici doonana maaha wax laga yeelayana maaha marka arintaas aad iyo aad baan u xambaaraynaynaa ka socota gobolka Ilaa iyo gobolka Sanaag